assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal waxaan maanta idiin soo bandhigayaa xaqiiqooyin muhiim ah oo ku saabsan diinta hinduusamka sidoo kalena loo yaqaano barhamiya xaqiiqooyinkan markaad daawatid waa kuwa kula yaab gelin doona waxaana isbedeli doona sawirkii hore aad ka haysatay diinta hinduuga ee ku soo dhow barnaamijka faahfaahsan Hinduism waa diinta saddexaad ee adduunka ugu weyn marka la eego inta qof ee aaminsan waxaana ka weyn diinteena islaamka iyo kiristaanka waxaana rumaysan diintan 1 bilyan oo ruux oo dunida ku nool taasoo la micno ah in 15% ka mid ah dadka adduunku ay diintan haystaan waxay caabudaan hinduugu in ka badan 330 milyan oo ilaah waxaana ka mid ah magacyadooda ilaahyada caabudaan Shiva, Vishnu iyo qaar kale oo badan iyagoo aaminsan inay ilaahyadan yaryar ku xidhayaan ilaaha weyn ee aanay aqoonta u lahayn waxaanay aaminsan yihiin dadka hinduugu in ilaahyadani qayb ka yihiin ilaaha weyn ilaahyadanna waxay u sameeyeen xubno dheeraad ah oo ay ku sheegeen inay haystaan awood dheeraad ah sida cilmiga abuuritaanka iyo awoodo kale waaweyn ilaaha Ibrahima waxa uu leeyahay 4 waji Rama waxa uu leeyahay 1000 indhood ilaahyada dhamaantoodna waxay leeyihiin 4 dhudhun kelmadda Hinduism xidhiidh lama laha diinta balse waa magacay Farisiyiintu u bixiyeen dadka dega wabiga Indus waana kelmad asal ahaan Farisiya iyadoo Hindi ku noqonaysa Firna Sharma waxaana ay af Soomaali ku tahay nidaamka bulshada Hinduugu waxay leeyihiin dhaqamo caadooyin lagu daray mabaadi dhaqameed waxaanay soo mareen taariikh dheer iyagoo dhisnaa qarnigii 15aad Ciise ka hor ilaa imika mana laha aasaas la garanayo oo la oran karo uu sameeyay diintan laakiin sida raajixa Siddhartha Gautama oo lagu naanayso Buddha waxa loo aqoonsan yahay inuu aasaasay diinta Hinduism Mahabharat waa qasiido ka turjumaysa mabaadi'da Hinduismka waxaana lagu tilmaamaa qasiidada ugu dheer caalamka iyadoo ka kooban 1.8 milyan oo eray kitaab kaliya ma laha diinta Hinduismku balse waxay leedahay kutub kala duwan oo qadiimiya kuwaas ay aamineen inay yihiin kalaamkii Allah ku soo dejiyay culimadoodii hore waxaana sheegeen inay ka dhaxleen ab ka ab waxaana kamid ah kutubtaas Vedas Amna Shaydas ab Quranas iyo Gita waxay aaminsan yihiin Hinduugu in ilaahyadu ka yimaadeen qof lagu magacaabo Krishna waxaana sheegeen inuu la kulmi karo ilaahoodu iyagoo la hadli kara sida Kristaanku ula hadlaan Jesus waxay u qaybsamaan dadka haysta diinta Hinduugu dhowr qaybood waxaana kamid ah kuwa ilaaha Abrahama ka abuuray afkiisa sida macalinka faaliyaha iyo garsooraha iyo kuwa kale la yiraahdo Kashtar waana kuwa ilaahu ka abuuray gacmihiisa waana qaar hubka sida diintana difaaca wiishi waa qaar kale ilaahu ka abuuray bawdidiisa waana kuwa wax beera kadibna sii iibiyo waxa ay beereen lacagta isu keenana ku bixiya macaahida diintooda lagu barto waxaa jira qaar kale ilaahu ka abuuray lugihiisa waa siday aaminsan yihiin shaqadooduna tahay inay u shaqeeyaan kuwa horeyna soo tilmaamnay waxay aaminsan yihiin Hinduugu in qofka dhinta la gubo waxaanay rumaysan yihiin in nafta qofka ka baxday ay galayso noolo kale haba noqdo qof xawayaan ama xasharaadba way kala duwan tahay siday u soomaan dadka diinta Hinduismka aaminsani waxaanay u kala duwan yihiin siday taqaaliidoodu ugu kala duwan tahay deegaanadooda halka kuwa taabacsan ilaaha Shiva ay soomaan maalinta Isniinta kuwa caabuda ilaaha Vishnu ay soomaan maalinta Khamiista waxaana ugu badan kuwa soomaan maalinta Salaasada waxaanay kala soomaan 9 maalmood ee ugu horeeya sanadka iyagoo cuna khudaarta iyo cuntada caleenta leh kana sooma cuntada culus sida hilibka iyo wixii la midka ah waxay Hinduugu sanad walba u dabaaldegaan ciida Diwali waxayna la micno tahay ciida nuurka iyagoo ciidan xusay ilaaha Lakshmi oo ah ilaahooda dhaqaalaha ciidan waxay socotaa 5 maalmood dhammaan guryahoodana waxay ka shitaan leerar fara badan Hinduugu dhamaantood maaha kuwa khudaartan ku nool inkastoo jiraan qaar badan oo khudradda ku nool laakiin taasi maaha mid ay ka wada sameeyeen dadka diintan aaminsani waxaana jira qaar badan oo hilibka cuna laga soo reebo 30% qof oo aan hilibka cunin macbadka ugu weyn ee diinta Hinduismku kuma yaalo wadanka India balse waxa uu ku yaalaa wadanka Cambodia waxa lagu qiyaasaa dadka Hinduuska ah ee ku nool dalka Nepal ku dhawaad 80% waana tiro ka badan dadka diinta Hinduuska aaminsan ee ku nool wadanka Hindiya waxaana la sheegaa in Nepal tahay caasimadda diinta Hinduismka dadka caalamka badankoodu waxay aaminsan yihiin in Hinduugu caabudaan asnaamta laakiin xaqiiqadu waxay tahay in aan loo tirin kuwa caabuda asnaamta waayo waxay ilaahay ka dhigtaan wax walba shay kasto noolna waxay u arkaan inay ruuxda ilaahay ku jirto dhibicdan dhafoorka kaga taala ama waxay ku magacaabaan bindi waxa marsada malaayiin haween oo adduunka ku nool waxaana u badan haweenka Hindiyaanka ah gabadha la guursaday ee Hinduuga ahna waxay uga dhigan tahay dhibicdan casi in aad ninkeedu u jecel yahay hadday dhibicdu madow noqotana waxay ka turjumaysaa in gabadha ninkeedii kala tageen
hinduugu ma caabudaan xawayaanka lo'da kaasna waa fikir khaldan oo laga haysto lo'dana iyaga agtooda sharaf weyn ayay ka leedahay iyadoo uga duwan dhammaan xawayaanada kale ixtiraamka iyo qadarinta ay xawayaankan hinduugu u hayaanna waxay dad badan oo la yaabay u maleeyeen inay nooc cibaadadooda ka mid tahay balse waxay hinduugu sheegeen inay tahay dhaqan ay leeyihiin oo ay ku qadariyaan xawayaankan xayawaankanna waxa uu agtooda ka leeyahay maqaam sare waana ka xaaraan qofka hinduuga ah inuu cuno lo'da waxaana ka mamnuuc ah inuu haragiisa ka sameeyo waxyaabaha hargaha laga sameeyo hadday baktidana waxa waajib ah in aas qaran oo kale loo sameeyo bal iskaba dhaafe waxay sheegaan in kaadida lo'du agtooda ka tahay mid daahiranaysa nijaas walba oo ku baado qofka jidhkiisa fadlan daawad haddaad ka heshay muuqaalkan like saar subscribe-na taaba si ay ku soo gaadhaan muuqaalada dambe aan soo gelinaa mahadsanid